Salebaan Aadan Cali oo ka mid ah hordoorkii waxgaradka waaweyn ee gobolka Saraar oo qaybo ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay magaalada Caynaba ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay Cabdiraxmaan Gulwade kaasi oo sheegay in dhibaatooyinkii dowladda kacaanka uga geysatay gobolada Somaliland uu ahaa mid dariiq sax loo maray. Salebaan Aadan Cali sidoo kale waxa uu eedeymo culus u soo jeediyay mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka ka soo yeedhay Cabdiraxmaan Gulwade. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد سليبان آدم علي كان مده بالشوين قبل كسرار وحن كهذا لما أنت هذا أنا جاي شعب كأن قبل قوة النور هيبة سي حرف له وديري أما قدام قي هذا القاس أو كسوي يري نكمل إذا حلاقي دولة سياد بره كاسو وجستي dadyoga gobolada waqooyi waxyeelooyin iyo hagardaamooyin iyo dil iyo duqayn intaba u geystay ninkaas oo la yiraahdo Generaal Gulwade oo uu soo diray ninka la yiraahdo Farmaajo kana mid ahaa dadyogii dib u heshiisiinta ama wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ka qayb galay marka koowaad horta waxa isweydiin leh Somaliland maxay ka faa'iiday wada hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliya ay la galeysay muddo dheer ayay wada hadalladaas socdeen madaxweynayaal waxa bilaabay wada hadalka madaxweynahan ka horeeyay wax haba yaraatee laga faa'iiday ama wax maanta aynu taaban karno ama shir aynu oran karno waa lagu guuleystay waxaas la soo qaaday ma jirto ilaa iyo maalintii wada hadalladaas bilaabeen ilaa maanta waxa ay gudidii uga qayb galeysay ay qirsiin laadahay war wixii na gaaray ee gobolada koonfur naga gaaray taliskii siyaad barreena qirta inaynu laba wadan oo isku soo biiray ahayna qirta waa laga kari waayay isku soo duuduubo faa'iidadii iyo madaxii iyo dhaxalkii aynu ka faa'iidnay wuxuu noqday raggii gobolada waqooyi duqeeyay in ay yiraahdaan waajib bay ahayd in la duqeeyo horta faa'iidadii aynu faa'iidnay iyo maxsuulkii kaasuu noqday waayahay marka halka laga yimaado waxay taas inoo cadeynaysaa fiila baydhaba ama madaxtooyada Farmaajo ka taliyo waxa lagu hayo ayay waqooyi loogu hayo ayay horta inoo cadeynaysaa waxa kale oo jirta Soomaaliya waxa ku mahmahdaan ninku dilay harku ma jiido Farmaajo wuxuu ka mid ahaa dadkii dawladda siyaad barre markii ay gobolada waqooyi burburinaysay falsafada ku hoos noolaa ee falsafada laga dhaadhiciyay gobolada waqooyi waa la baabi'inaya waana la burburinaya ninkan wuxuu ka mid ahaa raggii falka geysanayay waxa jirtay wafti ay u direen 89 meesha la yahay Ciraaq waftigaas oo ay ku ilaahay dad kurdiin ah oo ama faraasha ama yahuud ah ba gobolada waqooyi ku nool waxaanu doonaynaa hubabkii aad kurdiinta hadda tahay madaxweyne Sadaam hubabkii kurdiinta aad u isticmaashay inaad nasiiso nasiib wanaag waxa weeyeen diin baa waa lagu tashanayo wuxuu halka lagu tashanayso eeba ma joogin waxa weeyaan Ciraaqdii hubka loo doontay iyada lafteedii baa la galay waxaan leeyahay oo aan ku soo ururinayaa waynu haynaa maxsuulkii iyo faa'iidadii iyo waxa maanta Muqdisho inoogu yaala waxaad moodaa dadkeenu in ay si dhow isaga ilaaween wixii ay ina soo gaarsiiyeen dadka rejiimkii siyaad barre oo waliba inoogu sii daray tiqtiiqsi iyo waajib bay ahayd in maxay ahayd dadka la duqeeyo waxaan dawladda Somaliland ee madaxweyne Muuse Bixi ka taliyo hogaaminayo labada gole maxay ahayd aqoon-yahanada waxaan leeyahay waa in la sameeyaa maalin genocide ah oo xasuuqii gobolada waqooyi loo geystay xasuuqa waxa weeye adduunyada dhan waa shay ka caalami ah Bosnia dadkii xasuuqa u geystay maxkamadda ICC baa la hor keenay sidoo kale Rwanda iyo Burundi xasuuqii ka dhacay maxkamadda la hor keenay habeen hore
dowladda Israa'iil waxay u dabaaldegaysay guradii dadkii xasuuqa loo geystay xasuuqeena ma aha mid si dhow loo ilaawi karo ama mid si fudud waxa aan ku talin lahaa horta waa in la sameeyaa maalin la yiraahdo waa maalintii xasuuqa loo geystay dadyowgii gobolka waqooyi ku noolaa ee ay u geysteen dadkii rejiimkii Siyaad Barre ee ay hubkii iyo diyaaradihii ka dhaxeeyay ugu geysteen horta waa in maalinta la sameeyaa waa in jiilkan maanta goobjooga ahaa markay meesha ka baxaan jiilka ka dambeeya taariikh ay akhristaan iyo history ay ku tala galaan ay noqotaa inta marka laga yimaado dadyowgii hawlgalladaas ka qayb galay wixii ka nool wixii ka dhintay mooyaane wixii ka nool uu ka mid yahay Gulwade uu ka mid yahay Farmaajo uu ka mid yahay ninka la yiraahdo Morgan waa in maxkamada caalamiga ah la soo taagaa oo dacwadooda la geeyaa oo aan la olanin waxaas waqti hore waxa weeyaan maxkamadda magacyadooda waa in la geeyaa liiskooda waa in la qoraa waa in waqti kasta ha gaadhe ciddii nasiib u yeelata ay qabato kuwaynu dhalayna Allah ka dhigay waxaan ku soo ururinayaa maalin la ilaawi karo ma aha xasuuqii loo geystay dadka magaalooyinkii la burburiyey diyaaradihii lagu soo kiciyey kaarayaashii la jiirsiiyey wax la ilaawi karo si fudud lagu ilaawi karo ma aha dowladda Farmaajo ka taliyana waxay la tahay khafiif haddana lafteeda ayuu xasuuq ku sameeyaa dadyowga uu maamulo waxaad ku garanaysaa maamulada Jubbaland iyo Puntland sida uu la dhaqmo ama caynka uu ku sameeyo ama maxay tahay dilalka qarsoon iyo hagardaamooyinka qarsoon uu ku sameeyo inagana haddaynu haysanno inaan waxba nagu sameeynin hagardaamooyin kuwaas oo indirect ah buu nagu sameeyaa arigii buu naga xidhay meel kasta oo aynu wax ka eegayno ama meel kasta oo aynu u dhaqaaqno ilaa madaxweynuhu dalkii Guinea-Bissau ee boqday Allah ka yeelay waxa weeye hagardaamo iyo lugooyo ayuu inaga sameeynaya waxaan ku talinayaa oo waliba Muuse Biixi madaxweynaha dalka leeyahay inta aad waqti ku luminayso wada hadalka Somaliland waxaan oran lahaa wada hadalkii ha ku dhamaado waajib bay ahaayeen in la duqeeyo waxaan ka hayaa inan kamida inan qaali ah maxay ahayd kamida wada hadalada yaan laygu qancinin walaalkay oo maxay ahayd u shaqo tagay xamar oo kale yaan la oran in armiye ayaa waryaan laygu qancinin ciidana inama qasbi karto ciidina sankaynaga doonin kartee yaan laygu qancinin waa la wada hadlaya waxa weeye kharash iyo contract bay ku soo qaadanayaan waxa weeyaan maba dareensana wixii ay noo geystay wixii dad leeyahay laay wixii duuyo leeyahay baabiyay ma dareensana adduunkana waxa weeye ninku dilay kuma daweeyo baa la yahaa ninku dilay kuma daweeyo anigu waxaan la yaabanahay waqtigan aynu ku luminayno waxa ka qayr badan iyadoo genocide-ka raggii sameeyay maxay ahayd lagu lumiyo oo liiskooda la geeyo ICC-da sida ummadaha kale loo geeyay waxa weeye waqti la qabtaba waa la qaban karaya waxaan madaxweynaha dowladda Soomaaliland ugu baaqaya labada gole ugu baaqaya wasiirka arrimaha dibadda ugu baaqaya in ay ka hawl galaan wixii genocide-kan sameeyay oo uu goolwada ka mas'uul yahay oo la tusaa wixii ay geysteen waxyeeladoodii oo adduunyada loo bandhigaa balse haddii aynu ka aamusno adduunyadu inaanay waxba inoo geysanin iyagu waxaanay waxba inoo geysanin oo aynu dad iskood isaga diidaya aynu nahay ayuunbay adduunyadu u dareemaysaa waxaan leeyahay goolwadow waxaan u malaynayaa wixii calooshu ku jira afka xada wixii aad geysatay unbaa ilaahay kaa keenay awalbana waa lagu ogaa waxaan eegnaa madaxeeda iyo halka uu kugu dambeeyay 80 jir baa tahay ilaahow iga dhaaf baa ahayd inaad tiraahdo wixii aan u geystay islaamka maad oran shaaric almuudad iyo media la soo taagtay waxaad yeelaysaa tii allana waa ku dambaysaa tii waqooyina waa ku dambaysaa